saacado fara badan oo si weyn u socotay qabanqaabada gudiya sidoo kale diyaarinta madasha u gaarka daafurka shaybaadhka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo sanado fara badan bulshada ku dhaqan halkan baahi weyn u qabeen helidiisa xilligana noqonaysa markii ugu horeysay magaalada caasimadda Hargeysa ay martigeliso qorshe gaar u noqonaya hubinta tayada iyo sidoo kale fayadhowrka biyaha gaadhaya bulshada iyo si rasmi ah baara subaxnimadkii hore saaka looga daafuray halkan waa xarunta guud wakaalada biyaha ku leedahay gudaha Hargeysa shaybaadhkan oo kaliya gaar u noqonayn biyaha wakaaladu bixiso ee ka yimaada deegaanka Geed Deeble balse dhanka kale lagu hubin doono tayada iyo sidoo kale caafimaadka warshadaha biyaha soo saara iyo booyadaha biyaha dhaamiye ee magaalada Hargeysa si biyaha caafimaadkooda loo hubiyo bulshada u gaadhaan waxaana saaka munaasabadan oo hab maamuskeeda hab heer sare loo soo diyaariyay wadajir uga soo qayb galay boqolaal dadweynaha oo ay qayb ka hayeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland xubnaha ka tirsan golaha wasiirada hoggaanka asxaabta siyaasadda qaarkood wafdiga socda dalka Djibouti oo hogaaminaya wasiirka beeraha biyaha xoolaha iyo sidoo kale kalluumaysiga ee dalka Djibouti Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali iyo marshaaf tiro badan oo isugu jirta hay'adaha wada shaqaynta dhow ka dhaxaysa wakaalada biyaha Hargeysa sidoo kale shaqaaleynaha wakaalada ayaa wadajir uga soo qayb galay munaasabadan oo ka dhacday halkan oo taandho weyn oo afar shaxana loo sii diyaariyay oo laga qotomiyay bartamaha xayndaabka xarunta wakaalada biyaha Hargeysa waxaana bilowga horeba goobtaasi ka hadlaysa marhaantana faahfaahin dheeriye ka bixiyay maraaxilkii hirgelinta qorshahani la soo maray Maxamed Cali Daarood maarayaha guud wakaalada biyaha Hargeysa qabtan oo ah shaybaadhka hubinta tayada biyaha Hargeysa shaybaadhkan hindisihiisa koobaad wuxuu bilaabmay 2016 isagoo asaaskiisii koobaad xilliga bilaabmay laakiin aana hirgelin inuu dhameystirmo waxaanu dib u bilownay sanadkan 2020 ayay wakaaladu dib u bilowday iyadoo qorshihii iyo qaabkii loo hirgelinaana dib u samaysay keentayna khabiir kala taliya wakaalada sidii loo hirgelinayo shaybaadhka oo ah Dr. Axmed Xuseen Ciise waxaan ku guuleysanay sanadkan bishii 7 inuu dhameystirmo shaybaadhkaasi shaybaadhkaas oo awood inoo ah laba qaybood qayb sameynaysa chemical analysis-ka wixii mawaad kiimikaa'iya ama maadooyinka kiimikada biyaha ku jira amba markay tiradoodu badato caafimaadka bini'aadamka wax yeeli kara ama sidoodaba sunta u ah lagu baari doono mashiinada inoo yaalaana ay yihiin mashiino casri ah oo dhammaantood ah mashiinadii ugu dambeeyay nooca loo isticmaalo shaybaadhada biyaha wuxuu kaloo awood u leeyahay shaybaadhkan oo qaybta labaad ay tahay microbiological analysis dhammaystiran inaynu samayn karno oo ah noolayaasha ilmaqabatiga sababa waterborne diseaseska sida kolooraha iyo cuduradan waterborne diseaseska guud ahaan la yiraahdo ama bacteria lagu baarayo jiro iminka muddada uu shaqeynayay dacalada Somaliland oo dhan waa laga keenay biyo la doonayo in la eego xaaladooda waxa kaloo laga keenay meelo kamid ah wadamada aynu jaar ka nahay oo laga keenay ceelal laga qoday sida magaalada Garowe oo kale oo lagu eegay halkan marka waa shaybaadh u shaqeynaya magaalada Hargeysa dalka u shaqeynaya meeshii kale looga baahdana u shaqeynaya waayo waxa dhici jirtay inta badan markaynu u baahano biyo in la eego Dubai ama meel kale lala doonto haddaba dad noocyo ka shaqeeya shaybaadhkan dadka ka shaqeynaya waa dad qualified ah aan ku bilaabo laboratory manager-ka oo magaciisa la Shucaib Sheekh Mubaarak wuxuu ka shaqeynaya wadamada Suudaan iyo Saudi Arabia imika wuxuu ka yimid jaamacadda la King Fahad wuxuu haystaa double master cilmiga chemistry-ga oo haddii aynu qalab wanaagsan dhismo wanaagsan iyo kiimikooyin wanaagsan meesha keeno oo inuu lowno cunsurkii ugu muhiimsanaa ah cunsurka human resource bini'aadanka waxba inoo hirgeli maayaan mashiinaduna way iska xumaan doonaan marka dambe maxaa standard noocyada isticmaalaya ku shaqeynaya imika standardku isticmaalaya waa standardka ururka caafimaadka adduunka WHO ay u dhigtay biyaha bini'aadanku isticmaali karaan kala isticmaalaya wax lagu qiimeeyaa waa kaas maadaama aynu ognahay standardskii waddanka weli in iyaga laftoodu dee gacanta lagu hayo la horumarinayo shaybaadhkan waxyaabihiisana waxaa ka mid ah inuu helo ISO certificationska ku habboon shaybaadhada biyaha amba shaqooyinka noocana qabta taana qorshaheeda waynu ku jirnaa laabkan aynu maanta u fadhino waxaa wada horumariyay sanduuqa horumarinta Somaliland dawladda Jarmalka oo matalaysa hay'adda GIZ iyo wakaalada biyaha Hargeysa oo ku dartay hanti aad u badan oo kor u dhaafaysa $100,000 dhankooda waxa iyaguna goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed gudoomiyaha baanka dhexe علي إبراهيم جامع بغدادي دكتور أدنى آدن إسماعيل إرجع جارك سوماليلاند أقابسن وضحضلة الصومالية إيه موسى حسن قدوميها كوميشكا إلى لينتا تيادة سوماليلاند وحنا دمانتو سيس كوميدا هوستا وحريقين دزالة السعودة إسيجارة حكومة مركا لقيمة دوق عنتا كويس وكالة بيارجيسا وهرمودو يهي المسؤولين تيدو يادو أمانية أو همبليانية مارايها وكالة بيها عرضة إذا كمدا ماري محمد دارود أنا أمانة والد نمو إيو
anigoo ka wakiila guddida aan guddoomiye u ahay biyaha Hargeysa. sidee bay u wada shaqaynayaan laababkan imanka qaranka ka jira iyo hay'adda tayadu xeerka iyaga uu ku cad yahay annaguna waanu soo dhaweynaynaa shay kasta oo tayada lagu baarayo hadday tahay wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha wakaaladaha biyaha dhammaantood cuqdad kama qabno waa soo dhaweynaynaa mashruucan waanu arkaynay inuu u yahay halbowle biyagelinta magaalada Hargeysa runtii anaga si finance gareynay oo si maalgelinay macnuhu anaga bixinay lacagta oo si amaahinay waana soo celiyeen baarka biyaha ama hubinta tayada biyaha ee caasimadda Hargeysa runtii waa arrin qaali ah oo aynu in badan naawilaynay waa horumar qarankeenu uu ku tallaabsaday waa wax lagu farxo waynu ku amaanaynaa maareeyaha wakaaladda biyaha iyo tiimkiisa la shaqaynaya dhankooda waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha beeraha Axmed Muumin Said, wasiirka diinta iyo qaabta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Siciid Sulub Maxamed, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, iyo sidoo kale ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye, kuwaasoo dhammaantood tilmaamay muhiimadda qorshahani u leeyahay qaranka gaar ahaan bulshada fayadhowrkooda. wakaaladda biyaha shaqaalaheeda gaar ahaan intii iska xilqaantay samaynta iyo maxay dhahday iyo howlwadeennimada laabkan aan maanta isugu nimid furitaankiisa waxaan ka uga mahad celinayaa in allaaliya intii ka qayb qaadatay walba tallaabo la qaadayaa maantana waxaynu maraynaa inaynu iska eegno biyahaynu cabaynaa nooca yihiin ma aha laabka keliya ku yaala jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda biyaha lafteedu waxay leedahay iyaduna laab aad u ballaaran adkaysankeennii baranay aad iyo laxaad halkan waxaan ugu mahadnaqayaa cid aliyaala ciddii ka geysatay hawshan gacan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cid kastoo ka shaqaysay ee u horeysa wakaaladda biyaha Hargeysa iyo bangiga maalgeliyey iyo hay'adaha kale ee maartay ku tacbay intaba inuu ka abaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dunya aakhiraba maqaaruntii aad iyo aad baan hambalyeynaya aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay hambalyo wada shaqayn kolley ballaaran baa naga wada dhaxaysa beeraha iyo biyaha oo wasaaradaha isku xidhan baan ku jirnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda biyaha shay baadhada sida uu sheegay guddoomiyaha tayada fayadhowrka qaranku ku mahadsanyahay siduu sheegay in la wada shaqeeyo intaas oo shay baadh shalay maynaan hadal hayn shalay maxaynu cunaa maxaynu cabnaa ayay ahayd dhankooda waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka wacid injineer Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland xilligan haya ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere martida iyo wakaaladaba waa farxad weyn horta inoo tahay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin badana waxaan loo jeclaynaa uu yar yahay maanta waa maala qiimo weyn inoo leh baa weeye biyaha waa la sheegay dee wanaagooda waxaanaan aad iyo aad ka markhaati kacaya maareeyahan inuu yahay maareeyo dadaalaya waxaad ka garanaysaa dadku soo xushay ayaad ka garanaysaa aqoon buu soo xushay aqoon qalab fiican buu iibiyey qalabkaasna wuu fiican yahay fara badan inagu joogaan anigu laabka waan soo arkay hore aan u arkay maalmihii la sameynayay aada u qiimo badan baa aad samayseen waa taa laydinku wada ammaanayo wuxuu u baahan yahay laabkaasi in la ilaaliyo oo qaranka loo ilaaliyo qiimo fara badan baa ku baxay qiimo aada u fara badan waxtar fara badanna wuu u yeelanayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Sayli ayaa si rasmi ah munaasabada u soo afmeeray waxaanu bogaadin iyo hambalyo u diray dhammaanba cid kastoo ka shaqaysay hirgelinta qorshahan dhammaantiin biyuhu yihiin noloshii in la hubiyo oo tayadooda la iska hubiyaana ay tahay waa mudnaanta koowaad oo bini'aadamku inuu helo biyo isla markaana biyahaas yihiin biyo nadiifa oo iyaga qudhoodii ku noqonin xanuun ku noqonin inay xanuun sidaan marka hadal badan odhan maaye waynu baarigaynaa waxaana muhiim ah in waxa ay sameeyeen
siduu jiritaanku u jiri lahaa waxaa loo daryeeli lahaa hadday tahay shaybaar iyo hadday agabka kale soo iibsadeen tahayba inay joogteeyaan shaqadaasi oo nin waxaad moodaa waxaynu inta yar cusubnahay inuu qof ama aynan aada u yar dardarteenu laakiin joogteynta ay naga maqan oo waxay gaalotaa sustainability-ga bilaa wax kastaana wuxuu ku fadhiyaa wanaagiisu samaynta hore maahine siduu u jiro u waarayo ee u shaqayn doonaba ka asalan waxaana intaasi kadib madaxweyne ku-xigeenka ee sidoo kale mas-uuliyiintii weelinaysay si rasmi xariga uga jareen dhismahan cusub iyagoona kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee laabka halkaas oo sharxaad ay ku siinayeen howlwadeennada xarunta laabka ku sugan faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga Somali Cable Hargeysa.